Shaaha cagaaran waa kan ugu caafimaadka badan waxyaabaha la cabo ee dunida sida ay aaminsan yihiin khubarada caafimaadka ku xeesha dheer. Kobcinta caafimaadka guud waxaa ku jirta maadooyin loo yaqaan bioactive polyphenols. Maadadan ayaa hoos u dhigta bararka jirka waxaana la dagaalantaa kansarka iyo kaatijin oo ka hortagta dhaawaca unugyada jirka. Maskaxda waxaa ku jirta shaaha cagaaran maadada caffeine oo aan sidaa ugu badnayn balse waxtar u leh soo jeedka maskaxda kana caawisa qofka garaadka xasuusta falcelinta iyo badqabka maskaxda iyo in si maalinle loo soo daayo hormoonada duxda. Cilmibaadhyo kala duwan oo la sameeyay ayaa dhammaantood muujinaya in shaaha cagaaran uu qayb ka yahay miisaan dhimida isla markaana uu dedejiyo hanaanka cunno burburinta ee loo yaqaan metabolic rate. Kansarka waa unugyada jirka oo aan si aan xadidnayn u qaybsana waana mid ka mid ah xaadirkan cudurrada dhimashadooda ay ugu badan tahay. Waxaa qayb ka ah in xanuunkan uu faafo dhaawaca ay sababaan maadooyinka loo yaqaan oxidative waxaana ka hortag u ah antioxidants oo laga helo shaaha cagaaran. Ilowga iyo gariirka shaaha cagaaran ayaa qayb weyn ka qaata isla markaana horumariya shaqada maskaxda waxaana ka hortaga in ay gabowdo. Alzheimer's waa xanuun waxyeeleeya neerfayaasha waxaana ku dhaca dadka isla markaana waxa uu ku dambeeya waxa loo yaqaan dementia ama ilowga. Parkinson's xanuunkan ayaa ah kan labaad ee ugu badan dunida ee waxyeeleeya neerfayaasha waxaana ku dhaca isla markaana uu dilaa unugyada soo saara maadada loo yaqaan dopamine ee maskaxda waxaana sababa gariirka. Caabuqa ama infectionska sida lagu sheegay daraasado xiriir ah waxa uu shaaha cagaaran awood u leeyahay inuu la dagaallamo bakteeriyooyinka gaar ahaana tan ku dhalata afka ee loo yaqaano Streptococcus mutans. Dhinaca kale waxa uu awood u leeyahay shaaha cagaaran inuu la dagaallamo fayrasaska sida kan keena duriga ee loo yaqaano influenza virus. Macaanka kan labaad waxa uu ka caawiyaa ganaca inuu soo saaro insulin ku filan si loo burburiyo sokorta dhiigga ku jirta isla markaana loo dhimo. Wadnaha xanuunada ku dhaca wadnaha waxa uu shaaha cagaaran hoos u dhigaa maadada loo yaqaano cholesterol.